waan idiin salaamay, halkani waa Hadaaf Media. Muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa filim magaciisu yahay Alive soona baxay 2020 ka daawasho wacan. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa John Woo oo keligiisa guriga joogo. Hurdada ayuu ka soo kacayaa wuxuuna eegayaa saacada telefoonkiisa, sidoo kale wuxuu ogaanayaa in uu keligii guriga joogo wuxuuna helayaa warqad iyo xoogaa lacag ah oo ay hooyadiisa uga tagtay. Isaga waa gamer, wuxuuna guda galayaa in uu la cayaaro saaxiibadiis geemka. Isagoo live-ka ku jiro ayuu ka maqlayaa mid ka mid ah saaxiibadiisa oo leh waxaa dilaacay cudur dadka ku sababayo in ay bahal noqdaan. Dhanka TV-ga ayuu u soo ordayaa wuxuuna ogaanayaa in uu yahay isla warkii oo ka socdo TV-ga, oo xitaa waxaa la sheegay in dowladda xakameyn weyday. Haddana balakoonka ayuu aadayaa, indhihiisa ayuu ku arkayaa waxa ka socdo bannaanka. Wuu cabsanayaa wuxuuna ka argagaxayaa markuu arko dadka iscunayo, weliba qofkii la qaniino oo isagana bahaloobayo. Sidoo kale wuxuu maqlay buuq iyo sawaxan ka imaanayo isla dabaqa uu saaran yahay isaga. Isla markiiba waxaa xoog qolka ugu soo galay mid ka mid ah deriskiisa, wuxuuna John Woo ka codsaday suuliga in uu galo. John Woo waxaa telefishinka ka maqlay astaamaha dadka la qaniinay lagu garto, oo ah in uu maqaarka iyo indhahuba ay isbedelayaan. Sida uu telefishinka ka maqlay ayuu ku arkay ninkii deriskiisa ahaa oo isbedelayo, wuxuuna isku dayay in uu qolka ka baxo ninkii inta uusan zombie noqon. Laakiin John Woo ayuu soo weerarayaa wuuna iska difaacayaa, wuxuuna ku guulaystay John Woo in uu bannaanka iskaga bixiyo ninkii. Isla markiina albaabka ayuu soo xiranayaa, kadib wuxuu bilaabayaa in uu murugoodo. John Woo wuxuu fariin ka helayaa telefoonkiis, fariin waalidkiisa uga imaatay ay ku weydiinayaan xaaladiisa, sidoo kalena u sheegeen in uusan qofna ka furin albaabka. Cuntada u hartay ayuu kala maareynayaa si uu isticmaalo maalmaha uu ku xayiranaan doono guriga. Sidoo kale sawirka waalidkiisa ayuu fiirsanayaa si ay dhiirigelin ugu noqoto. Sidoo kale wuxuu social mediyaha ka arkayaa sida laysku badbaadiyo. Sawirkiisa ayuu dhigayaa qadka wuxuuna raacinayaa locationka meesha uu joogo si loogu imaado. Wuxuu albaabka ku xirayaa farinjeerka si uu amni u dareemo. John Woo fikrad ayaa ku soo dhacaysa oo ah in uu daroontiisa u isticmaalo in uu ku ogaado xaaladda eeriyadiisa ka jirto. Wuxuu ogaanayaa in ay xaaladdu aad u adag tahay, kaaga sii daranee moobilkiisa ayaaba ka dabdhacay. Haddana isagoo qadka ku jiro ayaa internetka oo idil go'ayo. Markaan wuxuu ku qasban yahay in uu u noolaado sida maxaabiis camal. Xilli habeen ah ayuu maqlayaa rasaas. Markuu fiiriyo wuxuu arkayaa askariyad xabadaynayso horarku, laakiin way qabsanayaan. Wuxuuna isku dayayaa in uu badbaadiyo, wuu u qaylinayaa, laakiin nasiib daro waxba uma qaban karo. Halkii ayayna ku dilayaan oo ay ku cunayaan. Wuxuu shanqarka maqlayaa abaartamiintihiisa, wuxuuna horay u soo qaadanayaa wax uu isku difaaco. Wuxuu arkayaa zombie albaabka isku soo ciriirinayo, wuxuuna isku dayayaa in awoodiisa uu saaro albaabka, laakiin ma awoodo si uu naftiis u badbaadsado. John Woo wuxuu sameynayaa in uu balakoonka qaybtiisa dambe qabsado si uu zombiga uga dhaco meesha. Wuuna ku guulaystay qorshihiisa. John Woo qolkiisa ayuu ku laabanayaa. Markaan wuxuu ogaanayaa in ay cuntada ka sii dhammaanayso, wuxuuna ku qasban yahay in uu kiskisaysto waxa uu haray. Wuxuu sawiranayaa wax walba in ay caadi yihiin oo ay waalidkiisa u joogaan, laakiin wuxuu ogaanayaa waxaas oo dhan in ay riyo yihiin oo kaliya. Wuxuu bilaabayaa in uu ooyo. Isla markiiba fariin cod ah ayaa moobilkiisa soo gaaray, waana familkiisa. Uu la xiriirayaa wuxuuna la hadlayaa hooyadiisa. Waxay u sheegaysaa in ay xafiiska aabahiisa ku sugan tahay, laakiin isla markiiba hooyadiisa waxaa soo weeraray zombiiska. Isagoo maqlayo ayay cunayaan. John Woo aad ayuu u xanaaqayaa, wuxuuna bilaabayaa in uu wax kasto jijibiyo. Asagoo xanaaqsan ayuu guriga ka soo baxayaa si uu ula dagaalo zombiiska, wuuna la dagaalayaa intuu awoodo. Laakiin markii uu arko zombie hilib dadeed cunayo, wuu cabsanayaa wuxuuna ku laabanayaa qolkiisa.
wuxuuna go'aansanayaa in uu nolosha isdhaafiyo. xarig ayuu qoorta gashanayaa si uu isku dilo, laakiin wuxuu arkayaa nal leesar ah ka imaanayo dhismaha ka soo horjeedo. kadib xariga ayuu iska jarayaa, wuxuuna arkayaa qof kaloo badbaaday oo ku jirto dhismaha ka soo horjeedo, magaceeduna waa Kim Yoon Bin. waxay fariimo isku weydaarsanayaan telefonkooda. Kim Yoon Bin waxay samaysatay dabin ay zombiiska ku disho. zombi ayaana soo galayo qolkeeda, dabinkii ayuuna ku dhacay wayna dishay. Kim Yoon Bin waxay rabtaa in ay caawiso Jun Woo oo ay cunto siiso. xarig ayay banooni ku xiraysaa si ay wax ugu gudbiso, laakiin kuma aysan guulaysan. Jun Woo ayaa daroontiisa in uu xarig ku xiro gabadha dhankeeda u gudbinayo, wayna ku guulaysteen. cuntada ayayna u soo diraysaa, laakiin xariga banooniga ku xirna gabadha soo tuurtay ayaa helayo. zombi dhulka joogay dabaqa ayuu ku soo fuulayaa. miis xariga ku xirnaa ayaa soo jiidmaayo, gabadha ayuu ku dhacayaa, wayna suuxaysaa. Jun Woo ayaa isku dayayo in uu caawiyo asagoo adeegsanayo daroontiisa si uu bahalka ugu mashquuliyo. bahalkii gabadha ayaa soo kacayso, bahalkii ayay gacanta ka jaraysaa, dhulka ayuuna ku dhacayaa. Jun Woo wuxuu go'aansanayaa in uu abaartamiintaha kale uu ka soo helo wax ay cunaan. wuxuu furo ka helayaa zombi dhintay jeebkiisa, waxa uuna helayaa cunto iyo earphone iyo taarar iyo qalabka buuraha lagu fuulo. wuxuu kaloo arkayaa haweenay dhimatay, laakiin isla markiiba waxaa soo weerarayo zombi, wuuna iska dhicinayaa. wuxuu isku dayayaa in raadiyooga uu daarto si uu xog u helo, laakiin wax signaal ah ma lahan. taarka iyo qalab kale ayuu u dirayaa Kim Yoon Bin si ay ugu sheekaystaan, waxayna bilaabeen in ay isla hadlaan. ayagoo kala fog ayay u sheegaysay qaabka cuntada loo samaysto, halkii ayayna ku sheekaysanayeen. intaa kadib roob ayaa yimid, weelal ayay u dhigayaan si ay u cabaan biyaha. maalinta xigtay zombiiska waxay galayaan dhismaha, waxay isku fidinayaan meel kasto. waxayna maqlayaan cod dheer, meesha ayayna aadayaan. laakiin Kim Yoon Bin oo si tartiib ah u socoto ayaa waxaa gacanteeda gaarayo miistaasoo sababtay cod ay zombiiska soo raacaan. ayadoo cabsanayso ayay Jun Woo weydiinaysaa waxa ay samayn lahayd. Jun Woo ayaa u isticmaalaya xirfad, wuxuuna wacayaa landline-ka deriskeeda, halkaas ayayna aadayaan. waxayna isku sheegayaan haddii ay halkooda sii joogaan in ay dhiman doonaan. Kim Yoon Bin waxay u sheegaysaa in aysan wax zombi ah aysan ku arkin dabaqa sideedaad, ayna macquul tahay in ay meesha ku noolaan karaan, ayna cunto ka heli karaan. dabaqa ayay ka soo boodaysaa, waxaana soo weerarayo zombiis badan, wayna la dagaalaysaa. ayadoo la cuni rabo, Jun Woo ayaa ka badbaadinayo wiishka, ayayna korayaan dabaqa sideedaad. markii ay tagaan zombiiskana way ka soo daba korayaan. Jun Woo wuxuu isku dayayaa in uu joojiyo uuna baabi iyo, laakiin aad ayay u tiro badan yihiin. waxayna ku cararayaan qol meesha ku yaalay, waxayna arkayaan nin kaloo badbaaday. wuxuuna siinayaa biyo iyo cunto. ayagoo cuntadii wado ayaa waxaa suuxayo Jun Woo oo cuntada wax loogu daray. ninkan ma uusan ahayn nin fiican, wuuna xerxerayaa. wuxuuna dhulka ku jiidayaa Kim Yoon Bin si uu ugu geeyo xaaskiisa oo zombi ah. waxaa soo kacayo Jun Woo oo bistoolad ninkii ku qabanayo, una sheegayo in uu soo daayo gabadha, laakiin wuu ka diidayaa. Kim Yoon Bin oo u dhow in la cuno ayaa jaanis u helayso in ay iskaga badbaadiso bahalka. wejiga ayay maro ka saaraysaa. ninka markuu soo furo albaabka, xaaskiisa oo zombiga ahayd ayaa lagu soo tuurayaa, waxayna cunaysaa ninkeeda. Kim Yoon Bin ayaa xabada labadooduba la dhacday si ay u disho, laakiin zombiiska kale ayaa soo raacayaan dhawaqa bistoolada. xaaladuna way ka sii dartay. Kim Yoon Bin waxay ka codsanaysaa in uu toogto, sababtoo ah ma rabto in zombi ay noqoto. ayagoo isdili raba ayay maqlayaan cod helikobtar, waxayna go'aansanayaan in qaybta kore aadaan. intii ay sii socdeen waxay la kulmeen weerar badan oo zombiis ah, laakiin ugu dambeyn way gaareen qaybta kore ee dhismaha.
laakiin nasiib daro wax helikobtar ma arkin zombieskana way soo jebiyeen albaabka xabadihii u haray ayay kula dagaaleen zombiiska waxaana ka dhammaaday xabadihii waxayna go'aansadeen ay istuuraan laakiin nasiib wanaag helikobtar ayaaba u soo muuqatay oo badbaadisay markii ay ka baxeen meesha teleefanadooda ayaa u soo noqday signaalka waxaana soo gaarayo fariimo badan halkaas ayuuna ku dhammaanayaa filimka fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka laygta noo saar sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa in aad sabskraibka noo saarto waadna ku mahadsan tahay daawashadaada